kelmadaydii halkan dawladnimadu miyay ina qaybisaa mise way ina midaysaa waxaan uga jeeday maanta waa aragtaan reer Soomaaliyeed baa gogol dhigay dhammaan Soomaaliya waa u timid waxay ugu timid waa dhaqan waa wada dhalasho waa waxa ka dhaxeeya dadka waxa ay ahayd in la isugu yimaado waxay ahayd dawladnimada Soomaaliya la isuguma imaan waa lagu sii kala fogaanayaa dawladnimadii marka fahamka Soomaalidu ay ka qabto dawladnimada ma mid nadiif ah oo Soomaali isu keenaya mise waa mid kala qaybinaya arinta ay rabto Soomaali inay ka doodo oo ka wada hadasho ilaa iyo maalintii gumaystuhu inoo yimid dawladnimadu waxay ahayd wax ka ag jooga ka fog oo ku dhibo ilaa iyo maanta ay taagan tahay in lagu sii kala fogaanayo dawladnimo nooceeya yaa Soomaali ka dhaxaynaysa ma mid shakhsi leeyahayba ma mid la wada leeyahayba ma mid la isku dhibaateeyaa ma mid la isku gacan qabtaa inta aan u jeeday wata go'aan kala